الرحمن الرحيم كلنتي waxaan wanaagsan ilahaantiinba ku soo dhawaada maanta waxa qaadanaa kufteeshka ugu horeeyay marka insha Allah kufteensha fudada qaadanaa si dadka dhan wada fahmaan oo adinkana fahantaan anigana fahano marka insha Allah ku soo dhawaada wuxuu noqonayaa kan koowaad wuxuu noqonayaa insha Allah kufteeshin horta oo sheekaysi conversation iyo conversation labada waa la dhahaa marka insha Allah dhageysi wacan waa laba qof oo markii ugu horreysay isbaranayo baa wada sheekeysanayo marka insha Allah xaggan wixii erayaa ku cusub oo erayaa aad lii karo ayaa meesha ka soo dhigay oo new words ku qoran tahay marka kan koowaad insha Allah isla fiirino how are you dad macni si badan baa loo kala dhawaaqaa macni adi sida hadda kula habboon oo kala how are you iyo how are you sidee tahay ama xaaladaada ka waran oo kala macna qof oo aad isku cusub kala dabadan loo dhaho laakiin qofka cusubtiin hello bisa la iska dhaha hello ha bisa la iska dhaha laakiin laba qof oo shaqaana macni laakiin mar isku dambeysay how are you sidee tahay I'm fine I am fine waan fiicanahay thanks mahadsanid and you adiguna macni aan sidee tahay oo kala waaye ay qofku wuxuu yiri I am fine waan fiicanahay too sidoo kale what is your name magacaa maaminaysa xabado aad barateen marka insha Allah saas oo kale ay noqonay marka what is your name battery magacaa waxay tiraa my name magacayga is Ahmed waa Ahmed and you gabadhay weydiisay tiri and you adiguna hay wiilkay weydiiyay gabadhay waxay tiri my name magacayga is Aisha way magacayga waa Aisha wuxuu yiri nice to meet you nice macni waa wanaag meet oo kulmid to macni waa tii xirinaysa nice macni to waa xarf isku xir macni wuxuu isku xiriyaa nice iyo meet isku xiriyaa marka waxay noqonaysaa nice to meet you me macni xagga meet marka ku qabanayso user meet ma dhaysid macni leeta nice to meet you ku fahmo qof macni marka nice iyo to raacay inay waa xarf kale oo consonant ka bilaawda ay ku xiriirsid Soomaa ilaa kan vowels waaye marka nice to meet you kulan wanaagsan Aisha kulanti wanaagsan macni waa qof oo kulanteen oo kulankan kulan wanaagsan aad tiraaday asna muxuu ku yiri nice to meet you too kulan wanaagsan sidoo kale Axmedow gabadhii ayaa ku dhacaysa marka insha Allah waa ku celinaa waa soo dulmaraa soo Soomaaliya how are you sidee tahay I am fine waa fiicanahay thanks mahadsanid and you anna I am fine waa fiicanahay too sidoo kale what is your name magacaa my name magacayga is waa Ahmed ayaa la yiraahdaa and you adiguna my name magacayga is waa Aisha ayaa la yiraahdaa nice to meet you kulanti wanaagsan Aisha nice to meet you too kulanti lamida Aisha nice to meet you Ahmed kulanti lamida Ahmedow ayaa soo Ingiriisi ku celinaa marka insha Allah dhageysta how are you I am fine thanks and you I am fine too what is your name my name is Ahmed and you my name is Aisha nice to meet you Aisha nice to meet you too Ahmed marka ereyada cusub baa insha Allah ayagana fiirinaynaa thanks waa mahadsanid marka waxa arkaysaa thank you mahadsanid iyo thanks mahadsanid labadaba isku mid oo loo isticmaalaa mudane marwa ciyaartiga marka fine waxay noqonaysaa ayadana fiicnaan nice to meet you ayadana waa